markale isku soo noqod wanaagsan halkani waa Zack Films fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe sar oo noo dhiirigeli sidoo kalena muuqaalka like sar mahadsanid filimkeena maanta waxa ku bilaabanayaa Helena oo ah gabar 20 jir ah xirbixiyeena ah taasoo nolosheeda inta badan ku qaadatay hawada sare kaasoo lagu magacaabo Orbiter 9 maadaama dhulku noqday mid sumaysan oo kuleel badan saynisyahanada dhulka ayaa diray si ay u soo tijaabiso in la degi karo iyo in kale meeraha Celeste taasoo ku qaadan doonto 20 sano oo kale si ay u gaarto meerahaasi Helena waxa halkan keenay waalidkeeda iyaga oo ku koriyay meerahan balse 3 sano ka hor cilad ku timid systemka oxygen-ta ayaa sababtay in hawadu yaraato waalidkeeda ayaa qaatay go'aan aan lagu fikiri karin si ay gabadhooda u hesho hawo ku filan Helena ayaa 3 sano ee ugu dambeysay ku qaadatay si kalinimo ah jadwalkeeda isbuuclaha ah ayaana ah in ay waraabiso geedaha jimicsato sidoo kalena caafimaadkeeda hubiso waxa hadda ku adkaatay neefsashada maadaama oxygen-ta ay si yaraanayso maalin ayaa waxa yeeray alarmiga markabka taasi ayaa cabsi gelisay Helena iyadoo ku carartay dhinaca laga hago waxay aragtay in markab kale ku soo xirtay markabkeeda waxa u muuqata in dad caawiyo loo soo diray kadib markay furtay ilbaabka laga soo galo waxa soo galay nin engineer ah oo lagu magacaabo Alex iyadoo ku faraxday maadaama ay 3 sano ee ugu dambeysay kali ahayd Alex ayaa isbaray isaga oo bilaabay inuu hubiyo oxygen-ta balse Helena ayaa egmada ka joojin maadaama aysan weligeed arkin mid iyada la mid ah saacado kadib Alex oo ku mashquulsan shaqadiisa Helena ayaa ku casuuntay casho isagoo ogolaaday inta ay casheynayeen Helena ayaa su'aalo badan weydiisay Alex balse Alex waa mid degan isagoo u sheegay in shaqadiisu dhameysto si uu ugu noqdo xaruntiisa maalinkii xigay Alex oo hagaajinaya oxygen-ta isagoo isku diyaariyay bixitaan habeenkii Alex oo hurda Helena ayaa soo korfuushay Alex ayaana soo kacay isagoo ka codsaday in ay ka degto balse Helena ayaa nolosheeda inta badan ku soo qaadatay kalinimo waxayna u sheegtay in ay ku qaadan doonto 20 sano oo kale in ay aragto qof bani aadam ah iyagoona waqti wada qaatay maalinkii xigay Alex ayaa diyaarsaday qalabkiisa kadib markuu ka soo tagay Helena wuxuu soo maray wado dheer isagoona ka soo baxay meel u muuqata sidii dhufayska taasoo ku taala dhulgeeda badan dhexdooda waxaan ogaanaynaa in Orbiter 9 uusan ahayn meere balse mid lagu sameeyay dhulka hoostiisa dhinaca kale Alex ayaa soo qaatay gaarigiisa isagoona dhex maraya keymta waxaan arkaynaa in ay jiraan dhufaysyo badan sida Helena oo kale waxa halkan ka socdo waa mashruuc lagu magacaabo Project Orbiter xogaa kadib Alex ayaa gaaray dhinaca albaabka taas ciidamo badani ay ilaalinayeen Alex ayaa wajahay dhinaca maalgeliyaha mashruucan oo lagu magacaabo Hugo ayaa u sharaxay tirkoobkaasoo muujinaya in ay jiraan 10 arbixiyeen isagoona u sheegay in wax waliba wanaagsan yihiin sidoo kalena in mashruuc si dhab ah loo hirgelin doono 20 sano ee soo socota Alex ayaa ka walwalay 10ka arbixiyeen Hugo ayaa u sheegay in 10 qof ay u dhintaan wanaaga dadka ay yihiin wax wanaagsan habeenkii Alex oo u socdo gurigiisa ayaa loo sheegay in ay ahayd 5 sano ka hor intii dayax gacmeedka Celeste u burburay habeenkaasi dayax gacmeedka ay saarnayeen 207 qof ayaa ku gubtay hawada dhow taasoo geysatay khasaaro badan waxaan ogaanaynaa in injineerkii sameeyay dayax gacmeedkaasi uu ahaa Alex naftiisa muddadaasi wuxuu uu ahaa mid dareemay dambi iyo murugo maadaama uu sabab u noqday dhimashada dad badan maalinkii xigay Alex ayaa la kulmay dhakhtarkiisa taasoo lagu magacaabo Sylvia iyadoo isticmaalaysa qalab casri ah qalabkaasi ayaa u suurtagelinaya in ay labada qof ee isla joogta aysan is arkin xitaa codkooda ayuu bedelaya waxaan arkaynaa in yey kaasoo raacaya dhaqdhaqaaqa qofka Alex ayaa u sheegay inuusan ku faraxsanayn shaqadan iyo waliba 10kan tijaabo sida uu waqtigu u socday waxa Alex oo galay xaalad murugo ah isagoona si joogto ah u daawada muuqaalada Helena taasi oo maskaxdiisa ka bixi weyday maalin ayuu go'aansaday inuu naftiisa halis geliyo isagoona aaday dhinaca xarunta dhinaca kale qaybta 9aad Helena iyada oo ku guda jirto jadwalkeedii maalinlaha ahaa ayaa hal mar waxa yeeray alarmiga dayax gacmeedka ayaa ka fogaaday saldhigga ilbaabka soo galitaanka ayaa furmay waxa soo galay Alex isagoona si dhaqsi leh ugu sheegay in aysan saarnayn dayax gacmeed ayna baxsadaan Helena oo cabsi la qabowday ayaan hadal ka soo bixin si uu u cadeeyo runtiisa wuxuu soo saaray kaamiro ku qarsooneyd meesha sidoo kale qalab lagu beeray si loogula socdo xubnaha jirkeeda sidoo kale
isagoo u sheegay in waxaanoo dhan uu u sameeyey badbaadadeeda, balse Helena waa mid aamini la. Sidoo kale maadaama ay Alex ku dakhraneyd waxay ogolaatay in ay raacdo, balse inta aysan bixin Alex ayaa jabsaday kaamirooyinka isagoona ku xiray muuqaalo hore si uusan qofna uga shakin baxsashadooda. Kadib markay soo gaareen banaanka, Helena ayaa isla markiiba gariirtay iyadoona socodkii gabtay, iyadoona markii ugu horeysay aragtay qorraxda heshayna hawo nadiif ah. Alex ayaa ku qariyay qaybta dambe ee gaariga iyagoona kasoo gudbay baaritaanka. Intaa kadib waxay tageen meel buur ah. Alex ayaana u sharaxay wax waliba oo ku saabsan mashruucan, sidoo kale u sheegay in ay waalidiintoodu ay weli nool yihiin, iyadoona ka codsatay in ay la kulanto, balse isaga ayaa ka diiday. Xitaa waalidiinteeda ayaa ka qayb ah mashruucan. Waxa ay aadayeen guriga Alex iyadoona la yaaban guriga iyo alaabta taala ayaa waxa yimid roob iyadoona dhex istaagtay. Maalinkii xigay Alex ayaa u tagay dhakhtarkiisa Sylvia isagoona ugu waramay waxa uu sameeyay. Sylvia oo u walwalsan Alex ayaa tustay wajigeeda saxda ah una sheegtay in ay caawin doonto xaaladdu haddii ay ku xumaadaan. Habeenkii Alex ayaa Helena kusoo wareejiyay magaalada isagoona u iibiyay waxyaabo kala duwan, sidoo kalena wuxuu geeyay badda hoosteeda. Maalinkii xigay Alex ayaa Helena u kaxeeyay xafiiskiisa khaaska ah isagoona u sheegay in ay tahay goobta uu kala socdo dhaqdhaqaaqa cirbixiyeenada. Helena ayaa weydiisay sababta uu sidan bini'aadan darrada ah ugu dhaqmayo, isagoona u sheegay in ay tahay horumarka bini'aadamka si ay u awoodaan in ay dayax-gacmeedka u diraan Celestine. Alex ayaa sidoo kale Helena u kaxeeyay dhinaca baarka isagoona baray saaxiibadiisa. Mid ka mid ah ayaa lagu magacaabo Dr. Shaw. Dr. Shaw ayaa wax ka weydiiyay Helena deegaankeeda, balse inta aysan jawaabin Alex ayaa bedelay mowduuca. Xogaa kadib kooxda ayaa ka wada hadlaysa mashruuca dayax-gacmeedka iyo sida uu waxtar ugu leeyahay bani'aadamka. Alex ayaana ku fikirayay in ay tahay mid wanaagsan, balse Dr. Shaw ayaa isna soo jeediyay in ay ka wanaagsan tahay in ay dhulka la hagaajiyo intii meelo kale la raadin lahaa. Intaa kadib maalin maalmaha ka mid ah, Alex ayaa arkay nabaro dusha Helena kasoo muuqday isagoona u kaxeeyay dhinaca saaxiibkiisa Dr. Shaw. Kadib baaritaanka, Dr. Shaw ayaa u sheegay Alex in Helena dareenka jirkeedu uu yahay mid zaa'id ah, sidii qof weligeeda jirkeeda uusan helin ilayska cadceedda. Dr. Shaw ayaana Alex weydiiyay nolosheeda saxda ah isagoona ka shakiyay. Alex ayaana shaaca ka qaaday wax waliba. Intaa kadib habeen barkii, Helena ayaa soo aaday qolka Alex iyadoona baartay faylalkiisa. Mid ka mid ah ayay ku aragtay warbixin ku saabsan yaraanteedii, sidoo kalena adreeska waalidiinteeda. Waxaana caddaatay beentii uu u sheegay Alex. Waxay qaadatay alaabteeda. Kadib Alex ayaa soo gaaray guriga isagoona arkay in ay ogaatay taariikh nololeedkeeda. Dhinaca kale, Helena ayaa gaartay waalidiinteeda iyadoo la hadashay, halka hooyadu ay u muuqato mid xiiseynaysa gabadheeda. Kadib aabaha ayaa bilaabaya inuu baaq u diro Hugo, balse hooyada ayaa gadaal wax kaga dhufatay iyadoona gabadheeda u suurtagelisay inay baxsato. Saacado kadib waxay u timid Alex iyadoona ku canaanatay maadaama uu ka qariyay xaqiiqda, maadaama uusan haysan wax uu ku jawaabo. Alex ayaa raaligelinayay isagoona habsiiyay. Si kastaba dhibaatadooda ayaa hadda bilaabatay maadaama Hugo iyo kooxdiisa ay ogaatay in ay baxsadeen. Maalinkii xigay, Hugo ayaa la kulmay naagtii madaxda u ahayd mashruucan, taasoo lagu magacaabo Catherine, isagoona u koobay xaaladda jirta maadaama mid ka mid ah kuwii ugu wanaagsanaa mashruuca ay maqan tahay. Hugo ayaa weydiiyay xalka iyadoona ugu sheegtay in uu sida ugu dhaqsiyaha badan usoo helo kadibna uu dilo. Dhinaca kale, Alex ayaa u kaxeeyay Helena dhinaca Sylvia isagoona weydiiyay meel ay degaan iyadoona siisay, balse inta ay wada hadlayeen gambaleelka ayaa soo yeeray. Sylvia ayaana aragtay Hugo iyo laba staff oo kale ayaa raadinaya Helena. Waxaan ogaanaynaa inuu jabsaday guriga Alex isagoona halkaasi ka helay kaarka shaqo ee Sylvia, halkii raggii ay bilaabeen in ay ka dhex raadiyaan guriga iyagoona gaaray qolka daaweynta, laakiin ma aysan arkin labadii ay raadinayeen. Balse Hugo ayaa amray Sylvia in ay daarto muraayadda, halka Alex iyo Helena ay meeshooda ku barafoobeen si iyaga uusan u muujin wax dhaqdhaqaaq ah. Marka ay xoogaa sugeen, Sylvia ayaanan ogolaan in lamaanaha la qabto. Nasiib darro, mid ka mid ah ilaalada ayaa madaxa ka toogtay, halka lamaanihii ay argagaxeen iyagoona goobta iskaga cararay. Iyagoona u cararay dhinaca saqafka guriga ayaa lagu ceersanayay. Kadib waxa ay arkeen in meel ay u baxsadaan aysan jirin.
balse Alex ayaa go'aansaday in uu ku boodo dhinaca sarta kale. Kadib markuu isaga bilaabay inuu boodo, Helena ayaa cabsatay. Ciidamada Hugo ayaana qabtay halka Alex uusan waxba u qaban karin. Intaa kadib habeenkii Alex ayaa aaday dhinaca saaxiibkiisa Xiao, sidoo kalena ciidamada Hugo ayaa garaaceen. Saaxiibkiisa ayaana ku dhahay aniga waxba igama gelin dantaada, isagoo u sheegay in natiijadu ay soo baxday Helena aysan ahayn mid loogu talagalay banaanka, balse ay ku caafimaad qabi doonto gudaha. Sidoo kale Alex ayaa u bedelay mowduuca, fikrad ayaana ku soo dhacday. Sidoo kalena Hugo ayaa la kulmay Catherine, isagoo wax ka weydiiyay inuu ku celin karo booskeeda iyo in kale, balse iyada ayaa ka diiday una sheegtay in ay uga bixi doonto lacag badan, iyadoona ku amartay inuu u dhameeyo Helena sida ugu dhaqsiyaha badan si uusan warku ugu faafin. Halka Hugo bilaabay hawshiisa, balse inta uusan dhaminin hawsha, Alex ayaa soo gaaray goobta isagoona heshiis la galay Hugo. Inkastoo amar la soo siiyay, haddana saaxiibtinimadooda darteed ayuu gudaha u keenay Alex, isagoona waqti iska lumin ayuu u sheegay in Helena ay uur u leedahay, canuga caloosheeda ku jirana uu yahay mid muhiim u ah mashruucooda. Hugo ayaana amray in Helena iyo Alex dib loogu celiyo xarunta si ay canugooda halkaasi ugu koriyaan, kaasoo 20 sano kadib noqon doono cirbixiyeenka mashruucan. 20 sano kadib, Hugo oo duqoobay ayaa taagan banaanka, waxaana soo baxday gabar yar iyadoona dhoola cadaysay. Kadib dib ayay u fiirisay dhufayska, sidoo kalena ceerka ayay fiirisay. Intaa kadib mashruucii ayaa noqday mid laga guul gaaray. Intaasi ayuu ku egyahay filimkan. Waxa aan aad iyo aad kaga mahadcelinayaa inaad soo gaartay muuqaalkan dhammaadkiisa. waxaan sidoo kale ka codsanayaa inaad saaxiibadaada ku share gareyso si aan u helno dad sidaada kale u wanaagsan. waxaan mar kale ka codsanayaa inaad subscribe saartid, sidoo kalena muuqaalka aad like saartid. waxaa inoo balana muuqaalkan muuqaalka xiga. sidaas iyo nabadgelyo.